بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ليال كلنت وناكسن جمعة مبارك ميل كستو أدون كاد كتوكتان هي ساعات كستو يدين تاي بإذن الله تعالى وساعدي قدام بيسي قوبتنا أنو كسوغن هاي جمعها وساعدي إجابة الدعاء بإذن الله تعالى وساعدي أين ولا لها مسلمين تيكل الدوان أين إلهي درتي سي إخلاص ولله يأود عينيني إنه إلهي سبحانه وتعالى وجهك قدونينه أدوم حسن إلهي سبحانه وتعالى أبريينه إن مراد ذاك الدوان يدلب يذاك الدوان أي إلهي سبحانه وتعالى ويدستين وإلهي أقبله إنه أين آمين توقدرنا sidoo kalena ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu uga baryayno qof kasta oo barnaamijkan markii uu soo gaadho isaguna aamiinta ku darsada oo ummadda muslimiinta aamiin u yiraahda in isagana ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu aamiin u leenahay muraadkiisa uu leeyahay oo aan macsi lahayn in Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyo waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa awalaalayaal in toddobaadka ka dambeeya inta u dhaxaysa maalmahaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ay adoomaha ilaahay loo duceeya ay soo sheeganayaan ma sha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka soo sheeganayaan mahad ilaahay ka soo sheeganayaan in waajib muraadadooda ilaahay siiyay ilaahay ka soo sheeganayaan in isbedel ay dareemayaan ilaahay ay ka soo sheeganayaan subhanahu wa ta'ala in arimahoogi uu u furay albaabo arimahoogina ay hadda u socdaan qaar guuleystay qaar meel dhex maraya iyo qaar ay u bilaabmeen laakiin dhamaantood rajadii ay u wada gaadhigii rajadu uu bilaabmay oo tareenka rajada ay wada raaceen ilaahay baa subhanahu wa ta'ala walaalayaal mahadle barnaamijkeenan toddobaadkan oo qayb kala duwan leh waxaanu ku bilaabaynaa walaalo kurbaysan oo haddana xanuunsanaya oo ka soo codsaday ducooyinkan gobolada Puntland ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu uga baryaynaa ugu horeyn kurbada haysata walaalahaas inuu ka qaado kurbadaas xanuunka haystay sidoo kale ee xabadkii meelaha kala duwan ilaahay waxaan uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala dhammaan xanuunka jirka ka haystana in ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ka siiyo walaalahaasi aamiintana walaalayaal idinkuna aad ugu dartaan allahumma aamin allahumma aamin allahumma aamin waxa kaloo jira walaalo kale oo muraado kala duwan leh oo iyaguna soo codsaday magacoogana qariyay laakiin codsaday in ilaahay subhanahu wa ta'ala muraadadooda allah uu og yahay in ilaahay muraadkooga macsi lahayn uu siiyo iyagana waxaan leenahay aamiin 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 allah idin aqbalo oo allah subhanahu wa ta'ala muraadadiin ha idin siiyo waxa jira walaalayaal qaybta saddexaad hooyooyin carruurahooda in loogu duceeyo raba waxa jira waalid codsanaysa wiilal tahriib oo tahriib ugu baxay oo ka soo baxay dhinaca Kenya waxay u soo gudbeen dhinaca Jubaland Kismaayo ay hadda ku sugeen carruurtaasi hooyadaasi waxay doonaysaa in wiil kamid ah carruurta la socda iyo wiilasha kale waa iskugu mid in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo celiyo waalidiintooda oo Allah subhanahu wa ta'ala kurbada waalidiinta haysta ka dulqaado waxaanan ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryaynaa in wiilashaasi uu ka joojiyo safarka halaaga ee ay isku biimeynayaan waxaan ugu baaqaynaa maamulka Jubaland sidoo kale in iyaguna gacan ka geystaan oo ay badbaadiyaan wiilashaasi isla markaana ay hooyooyinkaasi dhibaataysan ee kurbaysan ay u gargaaraan si iyagana ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu gargaaro iyo cid kasta oo deegaamada ku sugan oo gacan ka geysan karta biidnillaahi ta'ala waxa jira waalidiin qurbaha jooga oo iyaguna doonayeen rabbi subhanahu wa ta'ala loo baryo in carruurtooda uu fahamsiiyo xaqa waalidku uu ku leeyahay oo dareemayeen carruurtoodii isbedel oo ku socdo maadaama ay la saaxiibeen dad aan raali ka ahayn ilaahayna waxaan uga baryaynaa saaxiibada xun carruurta inuu ka joojiyo wiilal iyo gabdhaba isla markaana ilaahay fahamsiiyo xaqa waalidku uu ku leeyahay iyagana uu dariiqa saxda oo Allah subhanahu wa ta'ala waafajiyo waxa walaalayaal idinkuna aamiinta ugu dara anaguna waxaan leenahay aamiin 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 ya Allah ilaahu awlaadaas iyo waalidiintooda dhammaantood soo fahamsi waalid kasto si gaar ah oo soo codsada ilaahu si gaar ah isagana arintiisa degdeg ilaahu ugu qaba ya rabbul alamin waxa jira walaalayaal sidoo kale walaalo dhinaca commentiska dhinaca YouTube-ka ducooyin kala duwan ku soo codsaday iyagana ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa in muraadadooda oo aan macsi lahayn ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyo idinkuna aamiinta ugu dartaan qof kasto aamiinta ku darsadana oo Allah subhanahu wa ta'ala muraadkiisa siiyo dhamaanteynba
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ولا ليال واحد شرا ولا لك له أو قيبك لدوان فريمه قصوا مريي اللهم صل على محمد إلهي وحنو قبرينا إن مراد ضيقنا وسهله أنت بقت الله سبحانه وتعالى وعافيه أنت بلا عملك وإلهي سبحانه وتعالى شقوين وسيو أنت أرساقد علولي جاي كتهي الله سبحانه وتعالى ورزق واسعيه وفعليه بإذن الله تعالى أنت بلا أبدك إلهي سبحانه وتعالى وكو أرساق أولاد يدرية صالحين أو باريين أو قروح بدن أو دقن قروح بدن أو باريين أو اسكوكو تشرا وليبا ويلل إيا قبله كواس أو يعني دين تود يدد كوغ يدل كوغ بأنفع بإذن الله تعالى والدين تاسنا وحن إلهي سجاره وقبرينا إنه كفر حيه بإذن الله تعالى والله ما نياشاسنا قلوب تودا كالقعيل إيا محبة دحلقه أولاد أي كفر حان إلهي سبحانه وتعالى وسيه سمر كإنت يسوى سمرين إلهي سبحانه وتعالى وكفر حيه أبا القدوة أكسن بإذن الله تعالى إفي آخر بقى. اللهم صل على محمد أنت كلامقا deegaamo kala duwan ku kala maqan ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu isku soo ururiyo oo mideeyo ayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala iyaga nooga baryayna allahumma salli ala muhammad inta bila guurka ahna ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa inuu guur xalaal siiyo inta todobaadadan ismehersatay iyo inta aroos gashayna waxaanu leenahay gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabadh iyo caano biidnillaahi ta'ala إلهي سبحانه وتعالى أنت جريوتي تضبط كان نحن قبرنا نحرس جن إلهي نسيه دم دافوسيه الذي قرابتي أصحابتي أي كجريو ذينا إلهي سبحانه وتعالى سمر إيمان إنه إلهي كسيه دم إننا يعني إيه دبدود أنو إلهي نفدنا سبحانه وتعالى حقنا ونوسجه ولا ليال ثاني أنتم برامج ككلاج مع صوص بإذن الله تعالى سوي مرينا وحدك جتجيه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد